Gaadhigan oo noociisa loo yaqaano Treef uu saaran yahay qoriga loo yaqaano Dhishikaha iyo ciidankiisa ayaa ka soo goostay ciidamo maleeshiyaad ururisa oo dhowaan Puntland ay keentay Buuhoodle, kuwaasoo ay sheegeen inay tababar ugu soo dhammeeyeen xerada Xorgable. Ciidankan iyo gaadhigan ayaa u soo galay ciidamada milatariga gobolka Buuhoodle guutadiisa 95aad ee fadhigeedu yahay gobolka Buuhoodle. ugu horreyn waxaa ciidanka soo dhoweeyey taliyaha ciidanka milatariga gobolka Buuhoodle gaashaanle sare Maxamed iyo saraakiishiisa ciidan. Dhanka kale, ciidankan ka soo goostay ciidamada maleeshiyaadka ururiska ah ee Puntland keentay Buuhoodle ayaa sheegay inaysan u dulqaadan waayeen nabadgelyo darro iyo iska horkeen shacab oo Puntland ay ka wado gobolka Buuhoodle. Maanta laga bilaaban ay ka mid noqon doonaan ciidamada difaaca milatariga gobolka Buuhoodle ee Jamhuuriyadda Somaliland. soo galay baabuurkii aanu kala codsanay in aad noo qaramayso iyo ciidankii saarnaa kaasoo ka mid ahaa ciidankii darhaad yimid magaalada ee ka yimid dhinaca Puntland ee tababarka ka soo baxay. baabuurkaasi gacantaan ku haynaa waa kan xagga dhabarkayga taagan, ciidankii iyo isagiiba gacantaan ku haynaa taliya. nin ka mida ciidanka taliyahoodii wuu hadlayaa, marka dee intaasaan kuu sheegaynaa. ugu dambeeyey hadda aan asbuuca Buuhoodle joogin gacanteedu ku jira, taasaana markhaati furwa. haddii uu kuwa kale damco inuu Buuhoodle ku waxyeelayo amnigeeda ku khalkhalgeliyeyna shiraac abgaal iyo jananka Puntland mid kasta uu ku soo tabcaa gacanteedu buu ku dambaynaya, gacanta Somaliland buu ku dambaynaya. xaalad amni baan u joognaa, waa u joogi doonaa, kama baxana uu ka shaqaynayaa sidaas uu joogaya ciidanku maanta uga shaqaynayo gobolka dhexdiisa uu ka shaqayn doonaa. wabillahi tawfiiq. Cabdi Maalik Gadari, Telefishinka Qaranka Somaliland, Buuhoodle.